أنا تهقى يوم مركلان دلكي حلك كودو رنيه قالي دادي أحمد أضوه قالي دادي دولة ديو شبالا قالي دادي وانا تهقى يوم مركلان دلكي حلك كودو رنيه قالي دادي أحمد أضوه قالي دادي دولة ديو شعبيقا قالي دادي شبلان تكو ويتلاب ستة جيدكي هورو مركي كوچي هاي ستة ما منصوب بمباحي الكنو كلام كان أنت أسكوكم ناندونا سكونتين الشيخة سعادة شرفت القدون سين تيدا إيوه دولة داس سودوين تيدا وحن رأينا فرنا شركة وحن رأينا كسر دوي شيخ علي محمد علمي وآيات القرآن إنه غفره شيخ علي كسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقاس عبد الله وقاس كيني أنو تشعلين هذا أقويهم كأها walaalkeen inuu laba kelmadood ka yiraahdo Ugaas Cabdullaahi ku soo dhawow. waxaan rabaa inaan hambaliyeeyo oo aan bogaadiyo maamulka Jubbaland iyo shacabkiisa. waxaan leenahay hambaliyaan leeyahay. waxaan si gaar ah ugu mahadcelinayaa ama aan u hambaliyeenayaa madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam. meeshan hadda waxaa laga sheegay Axmed Mubarak baa loo baxshay. shirkii madashii Baydhabo ee ay isugu tageen madasha qaranka mar uu ka qodbeeyay qodbadiisii markii aan dhageystay anigu waxaan u baxshay Axmed Rullow waxaan u baxshay Axmed Daacid. waxaan hambalyo u diraynaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo ah madaxweynaha kaliya ee shanta maamul goboleed jira u dhaxeeya oo ay ku kalsoon yihiin kulligood haddana oo ay dhihi karaan ninkaana cadaalad idiin samayn kara. aad buu ugu mahadsan yahay. haddana aanu yeerayaa insha Allah injineer Cabdi Cilmi oo aqoonyahankeena aanu gadigan wada garanayno taariikhyahankeena Cabdi ku soo dhawow. hadalkana intiisa yar baa khayr badan waa soo koobaya. waxa weeye reer aan ka dhashay bari waxa la yiri war nuur iyo naalayar uu joogtaan naftiyo iga bixi. markii odaygii keltiga kii markay nafti ka baxday kii kale nafta ka baxday. xaan uga socdaa caawa Kismaayo Sheekh Axmed Madoobe oo Madoobe waa naanaystiisii iyo Sheekh Cabdi labadii bawaa jooga mid cad iyo mid madow waa Kismaayo. haddana Kismaayo nafti ka bixi weeyay markii labadooda joogay in naftu ka baxdo laba sanadood baa dawladda kaga luntay in la mudmudo oo la shaqeeyo oo balaa lagu kiciyo baas. anagu marka marna ma filayn anu walba nin baan hayo ninkan Sheekh Axmed oo leeyahay ee jabhadka ee raamaha leh ee hoysiiyana way warta ninkan wuxuu yahay ninkan ka dabaalanaya isma walahayn ba Kismaayo. ilaahay ma hadii waxa oo wax lagu mahadiyaa intuu ka dabaashay baanu baranay oo samir ku daray oo ku daray maartay cadaalad oo ay maanta meel walba laga amaanaya. warninkan waa kuwa warninkan Allah baarigo. haddana
dadka ninka raga haddii nin xumi helo oo la taliya oo jarka tuurayo oo balaayo ku hagaya waxba uma hagaagaan nin taliyaal fiican buu helay waxa isagu uu gartay waxa ka maqan taliyaal fiican buu helay iyagoo dhan marka waxaan leenahay horta allah u baarigo allah waa in loo duceeyaa ammaanta waxba ma tarayso ducada wax taraysa waa in loo duceeyaa in maaragtay hawsha inta ka dhiman oo shadaadiinta ka saaristeeda meesha hareeraha ka taagan iyo wixii ka dhiman inaan la ku guuleeyo iyagana waxaan kula dardaarmaynaa cadaaladda aad bilowdeen ee ah in meeshaas jinni iyo isi oo dhan soomaaliya ay wada leedahay oo aan cid kaliya lahayn berigii hore waxaa loo maagi jiray waar nimankan oo xuduuday ka soo gudboon oo gobolka ma laho waa kan waxay muujiyeen inay meesha leeyihiin soomaaliya dhan la leedahay yani haddii maanta sidaa ay ku wada tallaabsan lahayn soomaalida kale iyo dhiirrada intaa leeg waxaa dhici lahaa inaan dhibaatadu yaraan lahayd soomaalida kale haysata gobolka isaga ah nin biljinkiia anigu dekada markii la dhisay expan waxaan ka dhisay 64 lixda ceel ee laga qoday bilisqoqaani iyo maracaasho iyo afmadow 1 and 2 intaba ninkii qoday baan ahaa oo isburfaas karaynay beenna ma ahe markaan ka soo rarnay bilisqoqaani iyadoo dhiiqaa oo dayuuradii booliiska oo keenaysa saa ugu dulmarayno waa meesha wax marayaan ka tarabilajiidayaan oo aan weligeed aan la arag rig wax intaa lagu raro magaalada wax leer lagu raro baan ka soo rarnay afmadow meel u jirta 42 kiiloomitir xagga xuduudka sawaaxilida oo waxa ku keenay afgooye maartay 7 casho gudahood yaab iyo amankaa weli rikorkaa wax jabiye lama hayo oo noocaas oo kale ah waxaan ka wadnaa wuxuu yiri ninka biljinka berigii dagaaladii socdeen meesha joogay war anaga Brussels madax oo anaga Yurub madax oo ah war meeshan jannada ma la sheegi jiro war meesha tan adduunka dhamay cunto siin kartaa Denmark baan joognaayo waa 5 milyan 30 milyan bay cunto siistaan one time bay wax goostaan kismaayo 4 jeer bay wax goosan kartaa sanadkii the whole gas ka afroor bay cunto siin kartaa reer yar baa wuxuu leeyahay oo marba maartay meel kale ka yimi aan degaynba meeshan anaa leh war wax ka yeelo jinni iyo isba ku filantee anaa la iska daa ya waxa weeye kismaayo cid walba waa ku filan tahay waxaan hubaa haddaan noolaado maalinta Soomaaliyeed tagto qofka u dambeeya ahay inaan wax ka helayo ama wax ka qaadan karo wax ka beeran karayo maxay cid walba ka badan tahay oo cid walba ku filan tahay waxaan ku soo ururinayaa martida loo timi iyo sida hadda loo maartay sheekha loo guddoonsiyay bilada horta wuu istaahilaa waxaan ku faraxsanahay dadku u horeeyay ee magaalada deganaa ee gartay inay iyagu maartay iyagana waxa ku dhiirinaynaa oo aan hadda asoo farayna qurba joogta sida gobolka Soomaalida ee maartay Itoobiya qurba joogta dhiiri geliya oo u sameeya priority gaara maxaa yeelay wadanka iyaga dhisi kara iyaga lacag haysto meeshu waa nabad qurba joogay ku dhuro kismaayo investmentka gashada warshado yar yar keensada beeraha qabsada markii nimanka kale laga saaro marka inaga waa inaynu u diyaar garownaa kismaayo inaan degno camirno waa in inagana priority la siiyaa in dhulku waa badan yahay ma meelo magaalada la isku haysto 30 kilomitir dibadda horumarka dheerisa ka magaalada ku yaala marka waxa weeye dhiiridu labada dhanba weyn ka timaada dhalinyaradii qaban qaalisay meesha calaamadii Jubbaland igama muuqato meesha waay calaamadii Soomaaliya hadii Texas gobolka Mareykanka gobol walba caalam uu leeyahay kii federaalku waa ka dhaxeeya kii federaalku waa kan kii Jubbaland malawa muddo badan la weyn joogna waa daawacan karayeen marka waxa weeye doorka dambe ka muuqato waa mahadsantii waxaan rabaa inaan u yeero Dr. Saciid Cabdille oo aan iraahdo ku soo dhawow Saciid doctora ma sameeynin weli meelka hooseysan galgalanaya aad baa u mahadsan tahay laakiin waa jiraan meelo adduunka qofku markuu bachelor qaato doctor iska yiraahdo Talyaaniga ayaa kamid Faransiiska iyo waxaana looga sheegay markaan bachelorka qaadanayno meelaha qaarkood markaa tagtaan doctor baa lagu oranayaa Talyaaniga Faransiiska waana caadi official way marka anigu laakiin master baan ahay iyo xaqi kale oo waxyaalihii kale oo ka horeeyay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu anigu halka waxaan isu soo taagay odayaal waxaan sida daahir odayaal nasiib u helay siyaasigeena dawlamaasigeena sheekheena
inay wakti yar u helaan baan ka mid ahaa. waxaan rabaa inaan u yeero aqoon-yahankeenna hogaamiyaheenna ganacsadaheenna cabdiraxmaan shaafici. cabdiraxmaan kusoo dhawow. الحمد لله حمدا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضاه اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. انت كذب الهي يا مهد له ثم waxaan mahad celinayna walaalaha meeshan soo qaban qaabiyay khiyaarta meeshan fadhiga wanaagsan ee quruxda badan soo dadaashay iyo walaalkeen faarax oo nooga imaaday odanse oo intaasi bulshada inuu soo gudbiyo rabo wanaagii meesha ka dhacayo. si kaftan doorashadii dhacday labadan maalin odayga gudoomiyaha inuu soo noqonayo way iska yara way yara muuqatay laakiin midda ugu xiiso badneed waxay ahayd nin abti iyo nin adeer iyo ilma adeer aan nahay ayay ahayd. marka halkan waxaan uga tahniyeynaa asaga si khaas ah ninkii cabduuli sheekh ibraahim sheekh muuday yaa halkaasna hadduu dee maqlay tahniyadu halkan uga dhigay insha Allah taala. master cabdikaafi ganacsadaheena aqoon-yahankeenna soo dhawow. madaxweynaha Jubbaland uma baahna inaan ammaano because waxa qof kasta taariikhda qoraysta wuxuu qabtayna waa la og yahay wuxuu qaban doonana waxaan leenahay ilaahay ha fududeeyo. wax fiican buu qabtay runtii intuu meesha joogay waa ku ammaanaya. inta waxadayna waxaan leenahay ilaahay maaragta ha fududeeyo. Soomaaliya waxaa ka jirta iyadana abaaro waxaa ka jira maaragtay oo dhib badan oo dagaalo iyo waxyaalo soo noqnoqday. ayadana waxaan leeyahay maada dad badan aan isku nimidnahay in faataxada loo maro ilaahay inuu dhibka ka saaro. waa dhici kartaa in ilaahay naga aqbalo ducadeenaas ilaahay abaarta dadka ka dulqaado. waxaan hambalyeynayaa Jubbaland iyo madaxweynaha waxaan muxuu ahay soo dhaweynayaa sheeqeena qaaliga ah ilaahay ha xifdiyo shaqasoowe. intaa kadib waxaan leeyahay dadka waxaa deeqa sideedaba waxaa deeqa wanaag iyo cadaalad baa deeqda. Jubbaland muddo dheer kadib dhibaato iyo muxuu ahay wax walba oo ku dhacay kadib ilaahay baa mahad iska leh hadda way dhaqaaqday marka waa hambalyo alxamdulilah baan leenahay. hamoodina dad nool inaan nahay laakiin waxaan doonaynaa gacan shiishaan sidaan dalka kaga bixi lahayn oo u tegi lahayn oo dalkeena ay aadi lahayn oo cadaalad noo tusano naloo dilin. anigu waan baqaynaa daarishkii oo kala noqdo waxaan ka baqaya markaan magaalada tago dharbaaxo la igaga soo qaado oo isku soo xaabisho. marka ilaahay ha laga cabsado waxaan rabnaa noo baneeyo jidka halkaa jidkaa noo baneeyo waa soo soconaa. talooyin baan bixin lahaa anigu ku saabsan dadweynaha. qofku markuu mas'uul yahay meel uu joogo wuxuu u baahan yahay in lagu saacido. ninkii la yidhaahdo Sangub baa mas'ala wuxuu yiri markii dadku ay dhoofayeen ay dibadda u dhoofayeen yaa waxaad maqlay nin gaal dhulkii u barmoosay oo loo tahniyeenayo leeyahay hadda gaal uu barmooso dhulkii muslimiinta uu ka barmoosaya Mareykan buu socdaa ama Yurub buu socdaa markaas la leeyahay oo shukran Allah waa lagu hambalyeynaya. meeshii wadnaha la qabsan lahaa ee la nixi lahaa ee la walbahaari lahaa mas'uuliyadu waa caynkaas. waxaa waaye 4 project ayaa la soo codsaday oo dhinaca Jubbaland sanadkan 2016. DRC waxay qaybisaa 2.3 million oo Soomaaliya wax loo qabto oo wixii oo diaspora ah. marka waxaa waaye 2 goor baa la dalbadaa waxaa waaye December iyo June. midka oo secondary hal xabo waaye. secondary waxaa lagu sameynayaa Garbahaare meeshan ku dhashay. labana waa Kismaayo iyo hal projectigana oo wuxuu yahay waxaa waaye waa barnaamij oo project ah oo agoonta ciyaalka arrimaha dagaalka kusoo dhibaateysnaa si oo wax loogu qabto. waxaan dirayaa baaq waxaan inta u soo istaaga waxa way baaqana waxaan magaranaysaa u dhiibaya Sheekh Maxamed Casow ayaan u dhiibaya oo alla taliyaha madaxweynaha Jubbaland Axmed Islaan gobollo badan oo anaga magaranaysaa yani xuquuqdeeda lagu inkiray ay ka mid tahay Somaliland oo ilaa hadda waxaan mahad weyn u cidilinayaa Allah u naxariisanayo Maxamed Ibrahim Cigaal golaha gurtidana waa nagu daray golaha baarlamaankana waa lagu daray wasiirna wuu nasiiyay Maxamed Cabdullaahi nin la yiraahdo ninkii waa dhintay ilaa hadda boski waa banaan yahay
dacwadaasna weli waa noo taagan tahay somaliland in dadkayga golaha baarlamaankan lagu daro golaha wasiiradana lagu daro. waxaan u doodaa xuquuqda dadka naafada oo Soomaaliyeed. waxaan rabaa si gaar ah inaan marka hore halkan uga salaamo Sheekh Casoowe iyo dhammaan odayaasha sharafta leh oo meeshan fadhiyo oo ri'aawsaan isla nahay. marka xiga waxaan salaamayaa gabdhahanaga quruxda badan oo Soomaaliyeed oo huba la'aantood inaynan hirgasheen xafladan iyo dhalinyarada la soo shaqaysay oo xafladda soo abaabushay. marka saddexaad waxaan si gooni ah ugu mahadcelinayaa jaaliyadda Jubbaland ee magaalada Aws oo soo diyaariyay shahaado sharafta ay ugu talagaleen madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan. anigu hadalka badin maayo, laba arrimood baan ka hadlayaa. mid waxaan rabaa inaan si toos ah ugula hadlo dhammaan cid kasta oo Soomaali oo mas'uul ah. midna waxaan rabaa inaan si gooni ah ugula hadlo maamulka Jubbaland oo uu nagala joogo Sheekh Casoowe. fariimaha dadka aan aad loo ixtiraamin ma meel maraan intooda badan, laakiin waxaan ku celcelinayaa oo rabaa inaan aad ugu celceliyo kelmadda la yiraahdo oo anigu halkudhag u leeyahay. waxaan ku hadlayaa anigu horta magaca Hiil Naafo. waxaa halkudhag noo ah qofkii noolow naafo filo. qofkii noolow naafo filo kelmadda la yiraahdo macnaheedu waxaa weeye beri haddaad lixdaada laxaad hadda maanta qabto beri waxaad noqonaysa miyaad ogtahay. bahashu suuq ma taalo, lagama gato, cidna gooray ku dhacaysa ma ogo. marka haddaad maanta ismahadisay ood lixdaada laxaad qabto ood miisaaniyad lacageed haysato ood xil dad kuu dhiibtay ku takrifasho beri wax kuu dambeeya miyaad ogtahay. waxaan markaa ka codsanayaa qof kasta oo Soomaaliya ama siyaasi ha noqdo ama horta aqoon-yahaniinta Soomaalida la sheego waa kuwa ugu daran. aqoon-yahaniinta Soomaalida la sheego waa kuwa dadka Soomaaliyeed kala reebay. daqiiqada ka horna madaxweynihii baan hadda la hadlaynay. jaaliyadan meesha fadhida wuu salaamahayay, salaan naga gaarsiiyuu yiri inaan shirkaan imaanaynana waa u sheegnay. muxuu ahaa laba qodob buu ka hadlay madaxweynaha. arrintiisa markaan idiin sheego idiin soo koobo, mid waa midda abaarta. dhulkii abaar baa ka jirtuu yiri. abaartaas haddaad qurba joogtihiin abaartaasayta ka warqaba soo fiiriyuu yiri. midda labaad dad midaysan oo mid wada ah inaad noqotiin oo dadkiina iyo dalkiina wax u noqdo wax u tara waa inaan la idinka helaa. mar labaad waa salaamantihiin. shahaadadan waxaa soo dhiibay ururka Jubbaland ee magaalada Aarhus. wuxuu ku sharfay madaxweyne Axmed Maxamed Islaan. fantasiyana maaha, dreamna maaha, wuu mutaystay, wuu qalmaa, wuu istaahilaa. waxaan ilaahay uga rajaynayaa cimri dheer iyo caafimaad iyo in ilaahay ku guuleeyo hawshiisa inta hadhay. hore u soco, hore u soco, hore u soco Axmed. waxaan halkan ka salaamayaa kale madaxweynaheena Axmed Maxamed Islaan. Axmed Mubaarak waxaan leeyahay guuleyso. waxaa tahay madaxweynihii sanadka ee nabadgelyada iyo caqliga horumarka. waxaan rajaynaynaa inaad hogaamiso ummadda Soomaaliyeed. waan ka xumahay safar dheer baan ka imid. waan idin salaamaya. ree Aws iyo ree Denmark iyo ree Scandinavian-kaba siyaabo kala duwan baan isu naqaanaa. qolo sheekh bay dhihi, qolo siyaasi la taliya oran, qolaya kalena wax kale oranayaan sheegayn. ya marka hadda ka hor waxaan islahaa seed yeeli doontaa, halkeed ku dambayn, keed noqon, saas oo kale. tuulo yaroon ka yimid oon sheegaynin magaceeda yaa waxaa rag baa isku ballansadaa la yidhi. waxaa la yidhi niman baa weli berigii hore waa la lagtami jiray. lagdan ma taqaanaa? rag way lagdami jireen. waxay dhaheen si aan isu ogaano qofka ugu xoog badan, ceel fulaan rag badan beri isu keena. marka raggii la is sugayay ninkii la rabay inuu bilaabo hore baa la soo mataqaanaan ruux baa dhihi yaa ii baxay aniga. ninkii ugu horreeyay ee la rabay inuu dadka la hadlo dhaho yaa ila lagdamay yaa meeshii laga waayay. war hebel aaway, wagaasaa lama joogo. nin baa kale oo yidhi hebel mama joogay haddaba aniga iska horooba macnaa anaa galay iminka. marka meelihii anoo sheekhnimadii iska joogan baan maxaa arkay siyaasad banaan, haddaba waan iska galay. ya marka haddii dadka
ay saa ula socdaan macnaha waxaan ka wadaa hadba meeshay baahidu jirto qofku wuxuu ka qaban karo inuu ka qaban karo inuu isku dayo inta haddaan kasoo gudbo markii koowaad maaha aan shirka halka kale isugu nimaadno xaflad hore oo sidan oo kale u abaabulan oo aada u qurux badanna way jirtay marka mar labaad dareenka noocaas oo kale ah ree aws waan idinka mahadcelinayaa waxaan aada ugu faraxsanahay mar kasta oon kasoo laabto Jubbaland in dhaqdhaqaaqa noocan oo kale iyo soo dhaweynta iyo xafladaha noocan oo kale ay bilowdaan ee Jubbaland lagu taageerayo waxaa intaas ii kabta mar kasta inuu madaxweynuhu og yahay maalintii horena ee Axmed Mubaarak la oran jiray halkan uu ka soo hadlaan u maleynaya maantana xan ha igu ahaatee intaan shirka la furin odayaal khaas ah oo meel ka soo wada qadeeyay way isa soo salaameen in shirkan dhacayo oo meesha la isugu imanayo oo xafladan maxaan ku dhahay sharaftan uu gudoomi doono way si kooban baa looga soo sheekaystay oo warbu ka hayaa macnaha inuu halka nagala soo hadlo waxoogaa shaqooyin kala jiray wuxuu yiri waqti yar baa idin heli karaa marka inta odayaashaas nasiib helay inuu salaamo marka taasna anigana waxay tahay maxaan ku dhahay sharaf reed ousna sharaf bay u tahay taageerada ay haysaan ee labada dhinaca isagana inuu og yahay idinkuna taageersantiina iyadana maxaan ku dhahay waa arin ahmiyad gooni ah leh munaasabada maanta anigu waxaan ku leeyahay inaan shahaadadan quruxda badan ee gabdhaha quruxda badan ay wadaan midda yar iyo midda weyn inaan gudoomo ayaa maxaan ku dhahay doorkaygu yahay laakiin erayo wanaagsan oo la raaci karo oo macna sameynaya ayaa meeshan ka dhacay xagga odayaasha iyo xagga gabdhaha iyo qaabka ay hawl meeshu abaabulan tahay intaba sidaas darteed waxaan jecelahay inaan dhowr arrimood isdul taago arrinka koowaad madaxweynaha iyo magacyaantiisa badan waa magacaan badan waxaa la yiraahdaa كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى مجاعانت قفك مركي مجاعيان بدن لو ببحيه waxay tusinaysaa wanaaga qofka magacayaanta badan iska leh macnaha saas oo kale hadii muddo Axmed Daacad Axmed Mubaarak Axmed Kala Axmed magacaantaas badan ninba meeshuu ka eegay oo daaqada kaga soo aaday buu ka turjumaya marka arintaas waa arin wanaagsan waxay saa u tahay shirkanagi hadda aanu ka yimid sidoo kale cadaaladda laga hadlay odayaashana aad bay uga dardaarmeen idinkuna aad baad uga hadasheen madaxweynahana weli astaan bay u tahay caalamka record baa la kala qaataa Jubbaland waa meesha kaliya ee cadaalad ahaan 7 nin loo dilay hal nin kaliya weli ma qasheen inay istaagto oo lagu kala xoog badnaanin oo aanan ku habsadayn noqonin oo qof laga haybroon yahay laga haybsooca ma jiro Jubbaland macnaha iyadoo dhan way siman tahay maalinta arrinta dhacday dadka qaar badan baa la yaabanaa waliba dad badan oo madaxweynaha ka agdhawaa arrintaas qariib bay lahayd maxay ku dhici kartaa waliba ragga la laynayo markaasay dagaal ka yimaadeen ayuu buula guduud ka soo tagay oo maxaan ku dhahay jid magaalada ku soo noqonaya ayuu shil dhacay shilkii bay si laga fiican yahay maamuleen ayagina halkiiba maxaan ku dhahay ay qisaas ku muteen waa inta badan markii hore ay wax dhacayeen xanuun ha lahaato laakiin markii dib loo fiiriyay raad badan oo amni oo cadaaladnimo ayaa meeshaas maxaan ku dhahay ee ka ratimay marka arrinta cadaaladda waa la og yahay qofkii ka talaabsada uu ka jabaa waa nin sheekha dulmi badan soo maray isaga laftiisa markii dagaalku soo galay meesha sidii lagu yimid siyaasadihii ka soo horjeeday waxyaabuhu la soo kulmo oo dhan markii dib loo fiiriyo ma jiro wax ku bixinaya iminka inuu maxaan ku dhahay arrimo noocaas sameeyo marka waxaa isagoo nin noocaas oo kala oo fikrad
cilmi iyo aqoon iyo khibrad u leh arrintaa iyada ah isaga oo hadda markay noo yimaadaan martidu oo madaxtooyada la seexdo oo dadku habeenkii seexdo madaxda siyaasiyiintu waa dad fara badan badanaa madaxtooyooyinka kale waa lagu qayili oo qolal bay leeyihiin oo meelay jiraan maxay dhahaan markay nala kaftamayaan war annaga masaajidkan ma joogi karne waxaan magaaladaan aadaynaa meeshu waa masaajid ya yani markii la waayo luuq noocan iyo luuq noocana askartu waa noocaas balwad male waa laga ilaaliyaa balwadda xaruntu astaanteedu waa sidaas macnaha waa meel qofku ilaa xad isku aamini karo cadaaladii ka jirto rajaynayna inay sii xoog badnaato haddii ilaah yidhaahdo taas mid weeye midda kale iyo gabadhaas iyo dareenka dumarka markii gabdhaha reer Jubbaland iyo guud ahaan gabdhaha reer Jubbaland ee qurbaha dareen wanaagsan baa loo hayaa kow horta annaga madaxweynaha Jubbaland forumkii gabdhaha loogu talagalay uu ka soo baxay macnaha intii ay ahayd oo dhan iyadoo wareer ka dhicin wuu siiyey macnaha waliba labada qabiil markii Jubbaland la joogo ugu maxaan ku dhahaa ya ugu khatarsan yu gabdhihi ka keenay arrintaas maxay ku timid inay astaan u noqoto maxaan ku dhahay Jubbaland in gabdhaha iyo ka qaybgalka danta guud ee dalka Soomaaliya inay ka muuqdaan oo kaalin ku lahaadaan inay muuqato awgeed ayuu arrinta iyadana talaabada xoogga u qaaday dhinaca qurba joogta waan la socdaa waana la yar dhaleelaa qurba joognimada ee dadku markay yimaadaan dhaliil baa jirta waan arkay gudahana waan ku yar arkay baraanka markay yimaadaan arrintaas waan tagay maanan ku arag waan tagay anoon wax badan qabsanin baan ka soo laabtay waan tagay leema soo dhaweynin arrimahaas waan arkay laakiin had priorities baa jira marba sibay wax u jiraan ayadoo aad loo mashquul yahay oo ama doorasho lagu jiro ama dagaal lagu jiro ama xubno waaweyn oo siyaasadeed dhacayaan hadduu qofku ku yiraahdo waad garan kartaan in laga mashquuli karo laakiin hadda markii uu doorashada laga baxo madaxweynentinimada laga baxo wixii ka dambeeya waxaan rajaynayaa eedu markaa wayna qaban kartaa way dadka way qaban kartaa uu degan yahay amni badan oo laga cabsado ma jiro deegaan iyo hoteelo iyo ciriiri meel la seexdo la'aan ma jirto maxaan ku dhahay qof marti ah soo dhaweyntii jeeb la'aan ma jirto marka qurba joog waxaan leeyahay haddaad keligaa tahay oo soo dalbaraysana soo dhawow haddaad investor tahay oo hunguri haysana soo dhawow haddaad guri iyo boos aad lahayd booqanayso hadda soo elaynaysa eleel baa la dhahay soo dhawow marka qurba joogta waa soo dhaweynaynaa fariinta waana gaadhsiinayaa anoo reer Denmarkina insha Allah taala doorkayga waan ka qaadan doonaa intaas haddaan kaga baxo kelimada koobaad waan gudoomay maxaan ku dhahay shahaada sharafta intii aan hadda taagnayn waxa indhahayga ku dhacay qodobo badan oo ay ku doorteen jaaliyadan hadda maxaan ku dhahay sababta ay u siiyeen sababta ay madaxweynaha u siiyeen shahaada noocan oo kala qodobo muhiim ah yaa indhahayga ku dhacay maamulka oo la daadajiyey ama la geeyey heer tuulo iyo heer degmo arrintaas dhab wey arrinta in uu madaxweynuhu ka shaqeeyey inay afmadow shaqayso dhoobley shaqayso garbaharay shaqayso baardheere shaqayso luuq shaqeeyo beled xaawo shaqeeyo doolow shaqeeyo maxaan ku dhahay dhulku inuu shaqeeyo oo madaxdii tagto oo la booqdo oo diyaarado isu socdaan oo hargadaamooyinkii oo dhan ay siyaasadda ay jiraan haddana dhismo hoose oo infrastructure-kii hoose ee dowladda nidaamkeedii hoose uu dhismayay waxay kaga duman tahay Jubbaland badanaa wax weyn oo jug ah oo caawimo caalami ah oo meel uga timid oo saa loo taaban karo oo dhigi karo waxa dawlad fulaan baa idin siisay ma jiro haddana
waa arrintii maxaan ku dhahay way soconaysay marka waa qodob muhima inay dadka maanta ay canshuurtii in la bixiyo la qaado la mideeyo meel ku wada dhacdo ay ka wada fikirayaan sugidda amniga wax yar baan ka sheegayaa maalin horena waan sheegay maalin dhaweyd baan la joogay nin b b c da u shaqeeya jubbaland kismaayaan la joognay wuxuu yidhi ana b b c daan u shaqeeyaa b b c soo mataqaana midda oo london wuxuu yidhi markay nala soo dirayo aan rabno waddanka soomaaliya inaan war ka soo dirno meelaha keliya inaan lacag u qaadanin xagga amniga ah waxa weeye wuxuu yidhi waa hargeysa iyo garawe iyo kismaayo macnaha protection lacagna looma siiyo dheeraada habeen dhex mar helno amni ah waa xor waa seexan karnaa macnaha waa internationally hadda aad keli garayso kismaayo amnigeedu seeyahay waa free of charge waad seexan kartaa haddaad qof international staff tahay haddaad qof reebala tahay waad seexan kartaa wax wareerana ma qabtid dee wadkaagiina wadka isaga lama daweyn karo oo lagama celin karo laakiin inta bini aadamka ku tashado waxa weeyaan waa meel amni wey waxaana ugu wacan inta badan waxaa jira ciidamo amniya oo jubbaland sameeyey jubbaland ka bilowda oo ku dhammaada inta kale meelooyinka kale waxaa jira ciidamo badan oo la isla wadaago laakiin ciidamada jubbaland la islama wadaago hadday booliis yihiin hadday maxaan ku dhahay daraawiish yihiin iyo haddii ay yihiin ciidanka amniga la yiraahdo nabad sugidda waa ciidan jubbaland lagu tababaray lagu sameeyey madaxooda lagu abaabulay dadka ka yimid maxaan ku dhahay aan xadgudub lahayn wey insha allahu tacaala marka qodobadan ma wada dul istaagi karo laakiin waa wax ka jira dhab ahaan wax ka jira waxaan ka warrabaa inaan dhaho waa wax ahaan dhab ahaan ka jira jubbaland intaas haddaan jubbaland kaga baxo siyaasadda soomaaliyeed waa arrintii kale qodobkii kale hambalyada innaga jaaliyad ahaan reer denmark ahaan iyo jubbaland ahaanba madaxweynuhu uu hambaliyey doorashada maxaan ku dhahay guddoomiyaha baarlamaanka uu hambaliyey ku-xigeenadiisana uu hambaliyey annaguna waan u hambaliyeynaynaa arrintaas waa ku raacsannahay waana soo dhaweynaynaa waxaanan u rajaynaynaa insha allahu tacaala waxqabad wanaagsan oo khibraddii hore yeesheen inay kusii daraan laakiin wax kalean idiin sheegaya soomaaliya falsafadii siyaasadda hadda waxoogo way isbedelaysaa qodobo badan oo dhiirigelin samaynayna way jiraan qodobo yar oo maxaan ku dhahay in laga gudbo u baahanna way jiraan kow qabiilkii waa laga gudbayaa doorashada xamar markii la joogo hadda kadib qabiilkii wuu sii yaraanayaa waa arrin afifaalo wanaagsan ah waxaa soo baxaya siyaasad axzaab iyo group iyo nidaam ku dhisan oo waayo hal qabiil iskuma filla laba qabiil la iskuma filla iminka qof kasta wuxuu ku khasban yahay in uu taageero ka helo ugu yaraan 3 meelood oo kala duwan oo reerkiisii ahayn madaxweyne isagama hawoon karo waa meeqa maamul goboleed ilaa 5 Soomaali waa imisa 5 waaye markii 4.5 leeyahay 5 way 5 saddex kamida haddaydan badankooda haysanin wax ma noqon kartid marka qabiil ni kaligiis wax soo saaray ba jiraan maanta taas waa waxay ku khasbaysaa qofku inuu safro oo hadduu siyaasi yahay Jubbaland u kaco hadduu siyaasi yahay Koonfur Galbeed u kaco hadduu siyaasi yahay Galmudug u kaco hadduu siyaasi yahay Puntland u kaco si uu helo cod marka hadduu cod helo oo meelo kala duwan cod ka helo waxaa suurtagal inuu madaxweyne u noqdo dad aan hal qabiil ahayn macnaha hadda kadib marka siyaasadtii hore ka degan oo qabiilkeedu ka yaryahay oo mabda iyo maslaxad dad dhex martay ku dhisan waan rajaynaynaa insha allahu tacaala inay noqoto doorkan iminka soo socda saasay noqonaysaa waxaa intaa dheer arrin yar oo weli waxaa jirta laba arrimood oo negative ah jira negative-ka koowaad waxa weeye dad badan oo weli u haystaa jira Soomaaliyeed sidii hore tahayo isagoo oon lahayn khibraddii iyo inuu damaci madaxweynenimadii baa weli waxay dad iska moodeen oo jaga yar oo la sheegay oo la iskaga wada tartami karo meel weli lagu yaacday bay u haystaan dadka qaar macnaha tirada tartamaysa way badan tahay arrinta waa negative oo dad baan weli u qiimaysnayn
inay madaxweyne noqon karaan iyo in kale. Marka tirada way yar badan tahay oo xaggaas weli negative ka jira. Arrinta kale negative ka jira waxa weeye dad baa weli ismoodaya lacagta ay haystaan oo kaliya uun inay ku gadan karaan codka dadka kale sidaas oo kale. Arrintaasna sida hadda doorashada ka muuqata lacagna kuma wada filaan karto. Waan ku habsaday oo waan iska imid oo hebel baa la yiraahdaa oo ama hebel baan Holland dheeraanay ama qori baan haystaa ama saas oo kale iyada ma shaqaynayso. Marka lacagtuna way yaraan doontaa effectiveness-keedu. qof aan muwaasafaadkii lahayn inuu madaxweyne iska noqdana way yaraanaysaa saas iyadana soo socota. Marka arrintaas iyadana waxaan ku dhahay ha ahaato laakiin waa arrin aan rajaynayo in si degdeg looga bixi doono haddii Ilaahay yiraahdo. idinku dheerayn maayo laakiin waxaan rabaa inaan hadal kusoo gabagabeeyo. horta waan guddoomay maxaan ku dhahay shahaado sharaftan aad baadna u mahadsantihiin. waxaan rajaynayaa shahaadadan inay gaari doonto madaxweynaha Jubbaland oo idinkana mahadcelin doono. waana arrin bilow ah. nabiga calayhi salaatu wasalaam qofkii man hadduu qofku wanaag idiin sameeyo fakaafi'uhu idinkuna thank you ku dhaha soo jirto. meel waxay ahayd adag aad baa loo baharsanaa mararkii hore oon tagay 2013 iyo markii ay dagaalada aad u socdeen dadka siyaabo badan baa negative looga bixinay meel lagu dhiiran kala ma ahayn. laakiin maanta Soomaalida xataa madaxda Soomaaliya way jecel yihiin inay ku nastaan Kismaayo. guryo badan buu madaxweynuhu dhisay guriga martida uu ku yaala hoolal badan bay leedahay. waa meesha kaliya ee madaxda Soomaaliyeed intay doonaan bahal ay kaadaan hadday u safraan aysan wax kharasha ku joogin. anagu haddaan xamar tagno hoteelaan seexanaa ma fahamtay. marka xamar u safarno oo shaqo aan u safarno annagay tahay inaan lacagtana iska bixino hoteelka naga seexano gaadiidka naga samayno. laakiin qof shaqo u yimid Kismaayo dowladda mas'uulka ah chiefkiisa iyo deegaankiisaba 3 meelood oo la degi karo oo maxaan ku dhahaa chief iyo xafiisyo maamul iyo maxaan ku dhahaa shirar hoolal shirar iyo jikooyinkii ka kooban oo lagu shaqayn karo bay leedahay maxaan ku dhahay Jubbaland oo martideeda way soori kartaa. waxaad ku garan kartaan shirkii madasha mar dhaxdeeda lagu qabtay 8 bari bay ahayd. dadkii isugu yimid shirkaas ciidan iyo maxaan ku dhahaa dad caadi ah ilaa 1,000 qof baa lagu qiyaasay oo 8 bari ah. baabuurta logistiga chiefka raashinka wax laba baabuur xataa ismaardin waardiga iyo amniga madaxweynaha Jubbaland intaana anigu joogay weligii ma raacin gaari amisom weligii ma raacin weligiina ma waardeenin. xataa markii jidka uu soo maray jidka dheer markuu soo maray weligii gaari amisom ma raacin. isagoo xataa xabadda ku socota. laakiin waxaa jira madaxtooyooyin kale oo haddaad tagto qofka ugu xiga iridka maxaan ku dhahay madaxweynaha markaa rabta inaad salaanto ama qaran ha ahaado ama maamulka ha ahaadee meelaha qaar ninka ugu dambeeya ku baadhaya uu yahay nin maxaan ku dhahay amisom macnaha ninka ugu dambeeya ku baadhaya. meelaha kale qaarka way ka jiraan. waxaa laga yaabaa meelahaas inay Jubbaland dowlad ahaan ka horeeyeen. way ka horeeyeen dabcan way ka horeeyeen. marka iyada lafteedu waa dadaal. marka amnigana uu sugan yahay idinku dheerayn maayo. maanta hadalkaygu wuxuu ahaa munaasabadu waxay ahayd inaan idin guddoomo shahaadadan madaxweynahana idinka gaarsiiyo. aad baad u mahadsantihiin. aad baad Jubbaland u sharafteen. aad baad madaxweynaha Jubbaland maxaan ku dhahay u taageerteen. aad baan idinka mahadcelinayaa soo dhaweynta wanaagsan ay samaysay. la sugay amnigii wuxuu u baahan yahay horumarkii. waxaan ku buurinayaa jaaliyadaha reer Jubbaland inay u istaagaan oo maalinkii ay u istaagi lahaayeen horumarka gobolkooda khaasatan Jubbaland oo lagu soo dhaweeyay doorashada ka dhacday baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya
dhawaantan lagu doortay afhayeenkii hore professor Jawaari runtii dadka waxay aad ugu soo hambalyeynayaan oo ummaddu meeshaas ay iga muuqatay in ay ku faraxsan yihiin hoggaanka la doortay run ahaantiina waxa weeye howlo adag ayaa u yaala dhammaan baarlamaankana waxa weeye waxay muujiyeen howlkarnimo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacaygu waxaa la dhahaa Maxamed Carab Maxamed Qorane Maxamed waxaan ahay afhayeenka jaaliyadda Jubbaland ee Denmark kaloo u mahadcelinaya dadkii u dhabar adeegay oo arrintan maartay soo abaabulay oo u dhabar jabay oo la'aantood ayna suurtoobi lahayn inay xafadan ay qabsoonto kuwaas oo ah Awil Shukri Ubax Shirwax iyo matqana Fuaad Amoon Allah musta'an Safiya Layli dhammaantood way salaaman yihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. magacayga waa Cabdisalaan Cali Askar anigoo ah gudoomiyaha jaaliyadda Puntland ee Denmark soo daadego macnaha horumarka aan haddaan nahay jaaliyadda Puntland ee Denmark waxaan rajeynaynaa inay wada shaqaynteena sii socoto haddana dee waxaaba jirta inaan diyaarinay macnaha container xagga caawimad ah oo aan filay in u badnaan doonaan qalabka dadka macnaha disableka ama curyaamiinta Soomaaliyeed curyaamiinta oo aan u gudbin doono maamulka ama dowlad goboleedka Jubbaland. wadna deeqdayo markalahan dalkiyo xilka ku dooranee gaalidaade axmeda adoo gaalidaade dowladiyo shacbiga gaalidaade Jubbalanta ko way talaabsate jidkii horu markay ku jihaysate maamul suuban baa xilka noo haye axmeda adoo allahayow ku dhow jirkii wada dhashay laysku diri jirad isku duubtayoodu samaysay difaac